ganacsiga ayaa loo yaqaanaa wax kala iibsiga ama warshadaha kaamadaha kuwaasoon ah mid caalamka la isku afgarto ganacsiga waxaa ka mid ah wax soo saarka ama gaditaanka sida qalabka ama cuntada ganacsiga waa madaxtooyada dhaqaalaha dunidan aan ku noolnahay iyadoona la isku dhaafo fursadaha ganacsi ee la sameeyo haddaba halkan waa rugta ganacsiga yaryar ee degmada Baabil ee gobolka Faafan ganacsatada yaryar oo la hadlay warbaahinta dawladda deegaanka Soomaaliya SRTV ayaa codsaday in loo sameeyo suuqa ganacsiga ee loo yaqaan Taiwan-ka ganacsatadani ayaa ku dhex ganacsada agagaarka wadada halbowlaha u ah degmada soo halis ku keeni karta naftooda iyo ganacsigooda wadadan ay ku ganacsadaan ayaa ah mid khatar badan waxayna sidoo kale sheegeen in dakhliga laga qaado loogu dhiso goob ay ku ganacsadaan naftooda iyo maalkoodana ay ku waxaan rabnaa meel weyn oo naloo sameeyo oo Taiwan aan dhisano banaanka baan fadhinaa dhulka ciriiriga fadhinaa waxaan ku codsanaynaa dawladda inay boos weyn noo sameeyaan oo Taiwan ku dhisano sida baan doonaynaa dawladda ku codsanaynaa cashuur baan bixinaa masagaajaan bixinaa marka ina dhul weyn naloo sameeyo ayaa rabnaa amba naloo dhiso oo nalaga kireeyaa rabnaaba marka sidaan dawladda ku codsanaynaa dawladdeena aad iyo aad baan ugu codsanaynaa ciriiri roob baan ku jiraa dhulku waa dhoobo 24 saacadood markuu roobku daato waa la oradnaa daad baan naga qaada dharka oo nasi qaada dad buu qaadaa marka dib badan baan ku jiraa meel weyn ina naloo iibsho oo naloo dhiso amba noo dhiso dawladdu dhisto ay naga kireyso ayaan u baahanahay waxaan ahay ganacsatada magaalada Landhabe aan ganacsanay canshuur baan bixinaa ganacsi baan u nahay meel ku ganacsano fiican ma haysano dhoobada aragtaan baan ku ganacsanaa maalin dhaweeyto waxaan la qabsatay biyo aad u weyn oo naga taagroon oo magaalada wada hadaray oo wixii yaraga ee la haystay biyo ay wada qaadeen waxa kale oo noo dheer meesha Taiwan baan u baahanahay dawladda uga baahanahay waxaan ka codsanaynaa dawladda maadaama canshuurna nalaga qaadayo oo ganacsi aanu nahay in dawladdan aqoonsato oo Taiwan noo sameeyso oo dadka dawladda ganacsi oo ka ganacsada aan noqono ayaan dawladda ka codsanaynaa qofkii guud ay ka hortay degmada ayaa khasaare ku keenay ganacsigooda kuwaasoo u aananay qaabka loo dhisay wadada dhaxmarta halbowlaha waa degmada Baabil ee gobolka Faafan wadada halbowlaha waa degmada Baabil ee gobolka Faafan ee dhaxmarta magaalada ayaa mid aan la dhameystirin isla markaana aan loo balaarin goobihii ay mar lahaayeen biyuhu taasoo keentay inay ku soo rogmadaan goobihii ganacsiga yaryar iyo waliba sidoo kale xaafadaha ay degan yihiin bulshadu kolba wadada saan kolba suuqa oo ordana wadada isbaaltiga oo leenahay meel ka baab hore aan fadhiisano meel la malihin marka dawladda waxaan ka codsanaynaa meel fiican noo sameeyo oo markasta aan daad baan gala marka meel fiican oo taaga oo noo iibsin dawladda waxaan ka codsanaa waanta markaas anagoo shaqeyna war isku iman roob yar baa imanaya roobkii daadka alaabta intuu la tag alaabta dhan buu la tagaya ma garatay hadda dawladdeena tihiin meel yaran ku ganacsano fiican oo dad ognahay dumar ahaan hadaan nahay oo hooyooyinkii reeraha aan ubadka u xoogsanayna nahay kolkasta inaan khasaare la kulanna maahe inuu kulana noo ogaatiin meel fiican baan naga codsanayna wadada cabashadu sameysanta waa aasantay daadkii oo dhan baa qaladu naga wala biye barbar aan la faayay ka shaqeeya barbadii sidoo u dhanaa uu iga galay daadku marka uu uga wala qoyay marka wad arkaysiin baday imika baad doontiin qoyaanka baasadana waxaan raashinka waxa qoyan oo dhan waa wada la arkaysiin walaalaha waxaan naga codsanay meel fiican oo niguna dadaashin oo degdeg ah waliba naga codsan haduu ilaahay yiraaho oo markastiyo kolku roobku daayo gugo dhanba waxaan khasaaro waaweyn baa soo galaysa khasaaradana soo galaysa waa qaybta daadka weeyaan daadku waxa weeyaan dhaxdanba waxa iga sii galay 600 oo kun buu iga roobku iga khasaariyay dawladda waxaan ka codsanaynaa meel oo taago fiican inay noo sameeyaan baan ka codsanaynaa